dhexe iyo hiiraan marka la isku daro qabiilaadka degaahay way ka badan yihiin sodo iyo hee waay sodo iyo hee qabiil hal qabiil oo kamid inuu arqaladeeyo maalin walba arqalada u taagan yahay waa dhibaato anaga nagu filan nimanan ayagu isjeclayn annagana jeclayn ummadda la degtanaan jeclayn annagu bir loo wada ma naqaan ilaahay xalu keenaan leenahay annagu haddaan nahay reer shabeellada dhexe jowhar waxaan ku soo dhaweynay cali cabdullaahi cosoble waa ku caleema saarnay waana ku jeclayn waana ku faraxsanayn ninkii saas ahay wuxuu ka hay waayey beesha uu ka dhashay xilki ayagii uu ka hay waayey ayagii nimanka uu ka dhasho xawaadle maxamed uu ka hay waayey ninka la yidhaahdo asagii cagkay u direen waana ilaahay noo keenay nin wanaagsanuu noo ahaa nin fiicanuu ahay haddaana waa jeclay xilkee ayagoo uga soo naqa waayey ayagoo uga soo naqa waayey waana ognahay weeraradii ay ku qaadeen waare nin odaya oo macquula oo siyaasiya oo ahlu sharafa oo rag dhalaa oo qayr iyo sharaf badan u ahaa waana nimaan ku ammaanayna intuu xilkahay haddana kuma jiro dhibaatada socota inuu ka baryahan aaminsanna cali cabdullaahi cosoble tolkiisuu ka hi waayey markii hore haddana masaga ka haylana waa dhib kale waxaan rabnaa haddaan nahay gobolka shabeellada dhexe annagu laba madaxweynaan soo dhaweynay waxay ahayn xawaadle maxamed walaalaheenay ahaayeen waa ku sharfaynay walaalaan soo dhaweynaynay noo ahaayeen maanta hadday yidhaahdeen cali guudlaawe xuseen beledweyne lagu soo dhaweymaa beledweyne ayagu iska male soomaaliya ka dhexeeyaa beledweynena ayagu male calina waa tigi doonaa haddii ilaahay doono waxaa kaloon rabnaa waxaan daaranahay nin la yidhaahdo cabdullaahi goodax bare waa nin odaya intixaadna marka khaatumaa inuu maalinba dowlad ownaan ku jirin inuu caayo sax ma aha wuxuu yidhaahday cali cabdullaahi ninka la yidhaahdo cali guudlaawe xuseen wuxuu yidhaahday cilmi male waa reebaadiyo wallaahi waa xisaabtamaysa adi cali waa xisaabtamaysiin waa xisaabtamaysiin ku xisaabtan cabdullaahi goodax bare cali guudlaawe waa lagu soo horkeenaa aqoontaad leedahay iyo miduu leeyahay waa la isbarbar dhigi doonaa cali guudlaawe xuseen waa nin aan ebedkiis kaa sharaf iyo culeys badan intaan ka naqaan weligiis qofuu caaya lama arag qofuu mucaarada lama arag weligii wanaag iyo sharafuu ka shaqayn jiray haddana waa u taagan yahay ninka la yidhaahdo cabdullaahi goodax bare waxaan rabnaa waxaa nin weyn oo wasiira oo xildhibaan hadda ah oo golaha shacabka ka tirsan ayaa tahay waxaadna ku matashaa reer hiiraan kursigaas dadkana ka maragsanidiina waa lagu yeelay waa laydin yeelay waa laydin yeelay wax laydin yeelaa hawadiida ka baxshay reer hiiraan idinkaa hordada ka kacashay gobolka shabeelle dhexe idinkaa hordada ka kacashay garabkiina allaha gal marka waxa laga helaa la leeyahay waxaan baaq u dirayaa ninka la yidhaahdo wadaadkan jenaraal xuud la baxa jenaraal inuu ahayn isnoo ogyahay ununkuna waa ognahay shubka khaatumada ilmaha geela idiin ilaasho uu idinka fidnayn ilmihiisi yurub ay u jiraan yow idinka balaayeen ilmaha xawaadle maxamed farinta sufara yow ilmihi idinka fidnayn waa 9 jir masaajidka gafay 9 jir masaajidka gafay waay waa 9 jir masaajidka gafay masaajid wuxuu ku fiican yahay gurigiisa masaajidka wadada u dhaxaysa ee qodxa laga xaaro haduu weeru duca dhalay 9 jir masaajidka gafay waay ilmaha geelidiin ilaalisha yow idinka fidnaynin wayga talo reer hiiraan dhabaamayaan dagaal lagu lama aado reer shabeelle dhabaamayaan dagaal lagu lama aado shabeellada xadamaame dagaal lagu lama aado hay kullu go'ina xawaadle maxamedow tala odayaan siinaya tala odaan siinaya cabdullaahi waa la xisaabtama aqoonta cali iyo tiisa la isbarbar dhigi doonaa koow labo duqaan xuud leeyahay waa xuudi
ha iska seexda sariirtiis ilmaha geel idiin ilaasha oo xoolahan dhalahood mataqaanaa adugsatiin idiin ilaaliyo wada ka dhumin wallaahi oo bilaahi oo tallahi inuuna buurihi oo ka boodin adoogaas waa yeelkaas hore iyo gadaal horeyaa u dhow adduun aakhira waaye adduun waa gadaal aakhirna waa horay wallaahi hore gadaal horaa u dhow 9 jir dagaal ku baaqaay tawfiiq ma waafaqsanaan leh waxaan idinka rabaa علي واي ماها بلد ويني وحنوغو ماها 14 قبيلة دكت بلد ويني هل قبيلة نكتهين حوالله ويدن دورينا وحان اوغنا wax badanood ka shaqayseen waxaan ognahay inaad tiraadeen imaanka iyo ugaaska abgaal imaam karaan belad weyne waxaan ognahay beledki labada dhinac ee webiga labisa dhinac kale inay isaga degteen idinkoo dhinac bari mataqaana ka dhowraay ee dagaal kula tasho waa niman sabxooleey oo duubaba duubna in la sharfo u budan yahay ee in qoryeegana laga hortaga ma mudna waa idin haydnaa madaxweyne waare waxaad ka celiseen meesha la yiraahdo ay sheeg jawiil tigi may sida tiraadeen asad wiilna ku disheen kura dhaawacdeen waa la idin haayaa inaan la idin moogaha ahaan hadda waxaad ka shaqeeysiina waa la idin haayaa xawaale maxamed inay xukumaan Hirshabeelle kaligoor madaxweyne ka naqdan kan kuma qorra Soomaali kaasay ku heshiisay walaha isku ogtayna waxa ku dhex jiraan Soomaali u dhaqana kitaab allana kuma taal anagu islaamaanahay kitaab allana nooguma taal kana nooguma taalanday waxaad ka aqaligaad iska dhaadhiciseen wax shaqeeyay ma bini aadamku waxa rabaa inuu wax saliim oo sax iska dhaadhiciyo war hadda idinku jeclayna oo ugaaskii Soomaaliyeed ee Soomaaliya waab kuga jirtay ugaas Xasan ugaas Khaliif haddaad adik aflagaadaysiin oo dhibaataysiin oo ugaaska jaraaf u dhigaysiin oo nin la yiraahdo Yuusuf Ahmed Yuusuf hagar daba geed aad lu gooyaysiin oo kaligiis dawladda ka raba war ninkii dawladda ka dhac horta wax dhaqan xumadan iska dhaafiya war alihiin alla bayah xawaale maxamed oo iska fiiriya kana fiirsada waxaad ka shaqeeyaysiin idinkan ina anfac mayso annagana na anfac ma umadan hiiraan digtana ma anfacayso umadan hiiraan iyo Hirshabeelle la isku yiraahdo oo shaqada dhaxay iyo hiiraan ma anfacayso war midnimo ogolaada walaalnimo ogolaada in wax la wada yeesho ogolaada in la kala ragsanay ogolaada niman idinka badan degan hiiraan niman idinka badan oo tiran idinka badan oo labadii kugu laama degan waa fiiri ilaahan kugu dhaari ee nimankan alxamdulillah idin la dagay hiiraan ayagoo ku faraxsan dhismaha iyo dhaqanka muslim maxaa idinka hadlaysa madaxweyne ku xigeenad leediin oo madaxweynuhu baa la'aantii soo shaqay karin maamula leediin laba madaxweyneedii soo martay wiligaan wax warka qaban lama arag hiiraan warka ma qabin ka gobolka Shabeellaha Dhexe warka ma qabin raaxa wala maxamed wax isku fala war wax isku fala inna lillahi war xawaalo wax isku fala aniga wayga talo oday wayga talo walaal wabillahi tawfiiq